السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى وحو صدر أنبياء فربضا لكن وحو قرآنك كشيغي شان إلواتن نبي وكلية شان إلواتن كاس نبي متكستا وكميدنا وحو اسكالي هاي قصة يابلها عجيبة waxaan doonayaa maanta insha Allah ta'ala inaan soo gudbiyo qisada Dulkifli oo laga yaabo badankiin inaadnan maqlin aan idin bilaabo qisadii haddaad daneynayso in la soco hadday tahay markay kugu horeysay halkan soo booqatid Afmaal Studio fadlan subscribe saar gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan wax walba oo cusub markii uu weynaaday Nabi Sac wuxuu yiri waxaan rabaa inaan nin khaliif ka dhigo dadka u shaqeeyo kala xukumo inta aan noolahay si aan u arko sida uu wax u sameynayo dadka ayuu maalin kulmiyay wuxuuna yiri yaa iga aqbalay saddex arrin oo aan khaliif ka dhigaa yaa soomaya maalinkii habeenkiina taagnaanayo aan caroonaynin nin ayaa yiri aniga markaasuu yiri ma soomaysaa maalinkii oo dhan habeenkiina ma taagnaanaysaa mana caroonaysid miyaa wuxuu yiri haa maalinkii kale ayuu haddana sidii oo kale yiri dadkii dhanna way aamuseen isla ninkii ayaa haddana gacantii taagtay markaas ayuuna khaliif ka dhigay intaa wixii ka dambeeyay Ibliis ayaa shayaadiintiisa ku yiri ninka dabagala oo fitneeya simbirrixiya oo dambi ku rida laakiin waa uu noojiyay way ku daaleen Ibliis ayaa yiri anigii dhaaf aniga ayaa ninkan fasahaadinayo wuxuu ugu imaaday suurad nin waayeela oo faqiir ah markuu u yimidna waxay ahayd xilli uu seexan jiray Dulkifli habeenkii oo dhan ayuu soo taagnaan jiray maalinkiina uu soomanaan jiray xilli yar ayuu indhahaas gashan jiray xilligaas ayuuna u yimid ilida ayuu soo gargaacay markaasuu yiri waa kuma wuxuu yiri waa nin waayeeloo la dulmiyay markaasuu istaagay ilidana ka furay markaasuu wuxuu u bilaabay qisadiisii iyo sheekadiisii wuxuuna ku yiri anigii dadkayga khusuumo ayaa ina dhex taallo waana ay dulmiyeen sidan ayay i yeeleen kan ayay i yeeleen wuxuu bilaabay inuu sheekadii ku dheereynayo ilaa waqtigii uu seexan lahaayuu meesha uu ku dhammaaday markaas wuxuu ku yiri markaan tagay majliskayga ii imaaw aniga ayaa xaqaaga kaaga qaadayo ninkii waa u dhaqaaqay wuuna isaga tegey Nabi Dulkifli markii uu majliskiisii tagay ayuu ninkii meesha ka fiiriyay mana uusan arkin maalinkii dambe markii la gaaray oo dadka kala xukumayay asaga oo ninkii sugayo waana uu waayay muusan arkin xilligii waxaa la gaaray uu indhahaas gashan lahaa xilligii markii la gaaray ayuu ninkii haddana mar labaad yimid albaabkii ayuu soo gargaraacay Nabi Dulkifli wuxuu yiri waa kuma wuxuu yiri waa sheekhi weynaa ee la dulmiyay waa yeelkii ahaa irid ayuu ka furay wuxuuna ku yiri shalay sukumaanaan dhihin ii imaaw markaan majliskayga fadhiisto markaasuu duqii wuxuu yiri qoomkayga waa dad aad u xun markay garteen in aad majliska imaatay oo ay ogyihiin xaqayga inaad iga qaadayso waxay dhahayn annaga ayaa ku siinayna xaqaaga markii aad meesha ka soo dhaqaaqdayna way ii diideen wuxuu ku yiri iska tag hadda markaan meesheeda aan tagay ii imaaw xilligaana waxaa tagtay waqtigii uu indhahaas gashan lahaa waa uu tegey waa uu sugayey mana uusan arkin waxaa ka tanbadatay hurdadii qaar ehelkiisa ka mid ayuu ku yiri maalinkii saddexaad haddii iridda lidiin soo gargaraaca ha ka furina markii uu sidaa u seexan maagayba ninkii ayaa yimid markuu soo gargaraacay uu doonayay inuu soo gargaraaco ninkii iridda la istaajiyay ayaa yiri bartaada taagnaaw ha soo dhaqaaqin wuxuu yiri shalay ayaan imaaday arrinteedana waan sheegtay wuxuu yiri maya wallaahi baan ku dhaartay waxaa la amray inaana cidna ka yeelin inay meeshan soo gasho markay cabaar doodeen ka bacdi ninkii waa uu soo galay gurigii asagoo meel iriddi aan ka soo gelin albaabkii ayuuna ka soo gargaraacay dhinacii hoose gudaha ahaa waxaa soo kacay Nabi Dulkifli wuxuuna ku yiri ninkii iriddu istaajiso kumaana dhihin cidnaha ka yeelin inay soo gasho wuxuu yiri wallaahi meesha aan taagnay kamuuna soo gelin ninkan ee bal fiirfiiri dhinaca ka soo galay Nabi Dulkifli guriga ayuu fiirfiiriyey meel kastana waa ay xiran tahay wuxuu garan waayay ninka meesha uu ka soo galay marka ka bacdi ayuuna aqoonsaday ninka inuu ahaa Ibliis wuxuu ku yiri Ibliis soomatid cadowgii alle wuxuu yiri haa waan ahay waad i daalisay wax kastana waan isku dayay waxaan markaan damcay inaan sabarkaaga tagsiyooda xanaaqdo ka bacdina aad sibirraxasho yar ku dhacdid Nabi Dulkifli wuxuu ahaa midaan dambina ka dhicin wax gafan aana gelin qisadan cajiibka leh haddaa ka heshay fadlan like saar siina faafi mahad sanid